السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا لا يلسود وهذا ما أنت وحن هالكن إن كل وذاقيا مذ كم إذا مشاريع إذا أقومهم سن أد ودن كي أد كبلا بكرتيد أنا نهوبا إن دقالة يلعق أي كاغس ولا بنيسو مشاريع إذا سولا لا يل وحا كوكا مركا كواد وحا كوكا هو بيرها أد ولا لا المقال كمحاربة إن كل وذاقو qalab aan hubo in beeraley badan oo idinka mid ah ay gadan lahaayeen sidoo kalena dadka mashruuca beeraha iyo wax soo saarka bilaabayana aad iyo aad u anfacaya aan kula talin lahaa inay iibsadaan haddii markaa qofka uu beer iibsanayo ama beer iska lahaa waxaa walaalayaal qalabka kow ka ah matoorkan aad sawirkiisa aragtaan oo intaas oo tan ama kun oo litir oo biyo ah saacaddii soo saaraya 70,000 oo tan 70 tan ilaa 150 tan wixii u dhaxeeya ayuu ceelka ka soo saaraya waxaan sidoo kale walaalayaal aan idinla wadaagay matoorkan wareegaya oo isaguna ah cagaf ciidda intaas oo nooc aad beerta ugu fali kartid ciidda ugu rogi kartid beerta ciiddeedii aad kaga shaqaynaysid waxaan kaloo idinla wadaagi doonaa makiinad ama mashiin cawska aan markaa la doonayn ama dhirta beerta ka dhex baxda lagaga jari karo iyo mid afaraad oo markaa garanwaaga ama quraca ama meygaaga dhirta beerta markaa aan faa'iidada u lahayn lagaga jari karo intaana gudagelin walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaad marka koowaad aad like saartid muuqaalka si uu dad badan markaa u sii gaadho walaalayaal haddaba haddayn gudagallo waxaa in badan laysoo weydiiyaa sakariyow beerta matoor baan u baahanahay awood leh oo biyaha si fiican oo bereshar leh uga soo saara waxaan haddaba walaalayaal idiin raadiyey matoor aan hadda ka hor macaamiisha uga iibinay dalkan turkiga oo aad u awood badan tuumbooyinka ku xidhan waad arki kartaan waa tuumbooyinka gaboobay aadka u waaweyn matoorkani markaa walaalayaal saad aragtid ilaa 1,000 mitir oo biyaha ah tuumbadu hadday 1,000 mitir tahay hadday 1,500 oo mitir tahay biyo awood leh ayuu siinayaa beertaada dhowrka hektara isla daqiiqadiiba wuu waraabinayaa hadba ceelku qaabku u qodan yahay hadduu ceelku biyihiisu 14 mitir jiraan hadday 20 mitir jiraan hadday meesha xataa ceelku 40 mitir hoos u qodan yahay saacaddii wuxuu soo saarayaa 70 tan oo biyo ah waa 70 tan oo biyo ah ayuu soo saarayaa haddii ceelku dhow yahayna ka badan ilaa 130 tan ilaa 150 tan oo biyo ah ayuu awoodda kor uga soo dhufan karaa matoorkaasoo markaa saliiddiisii iyo dhammaan ayna cilladi gelayn oo saad halkan fiidiyoga ka arki kartaan tuumbada ilaa xaggee taxan ayuu biyaha si awood leh u gaadhsiinayaa matoorada yar inagu isticmaallo waaba gubanayaan saliidda ayaa gubaysa awoodna uma yeelan karaan ay ku waraabiyaan markaa beerta intaa tuumbooyinkeedu la eg yihiin marka koowaad beertu waa biyo waxaan idinkula talin lahaa matoorkan oo kale inaad u soo gadaan matoorkan markaa walaalayaal waxaa la siiyaa kharashkiisa ama dhaqaalihiisu waxaa la siiyaa ilaa 3,500 oo dollar ilaa 3,000 hoos uga sii yar yahay inta markaa hoos power uu yahay way ku xidhan tahay haddii aad mid diesel oo naafta ka gadanaysid iyo mid batroola ama baasiina hadba kaad gadanaysidna waa ku xidhan yahay matoorkaasi waa qodobka koowaad aan beerta dadka mashruuca bilaabaya ee biyo xoog leh ee webiga raba inay ka soo saaraan ama ceelka ka soo saaraan durdurka balliga meelaha biyaha laga helo dadka ganacsiga dhismayaasha isticmaala dadka biyaha aad u rara oo kale ee riigaga haysta dadkaasoo dhan ayuu anfacayaa matoorkan aadka u quwadda badan ee awoodda sare leh waana 3,000 oo dollar iyo dheeraad ilaa 3,500 matoorka labaad ee ama mashiinka labaad ee walaalayaal halkiinu kala wadaagayo waa cagaftan yar cagafyada sideedaba beeraha ciidooda lagu diyaariyo lagu jabiyo ee lagu rogo ee waaweyn ay naqaano de ilaa 30,000 oo dollar ilaa 60,000 ilaa 70,000 oo dollar ilaa 100,000 ayay gaadhaan hadba si ay kala awood badan yihiin dabcan dadka mashruuca bilaabaya in badanna waan ogahay inay markaa awoodin in cagaf saa u weyn ay iibsadaan haddaba walaalayaal waxaan halkan kula wadaagayaa cagaf sidaasoo kale awood badanna leh dhexdhexaada oo aad mashruucaaga u soo gadan kartid waa tan aad fiidiyowgeeda aragtaan
waa ilaa 15 horsepower awood badan bay leedahay noocyadeedu beertii ayaad ciidda ugu jabinaysaa ood ku falaysaa ciiddii ayaad ku rogaysaa ilaa 30 mitir ilaa 25 mitir ayay dhulka hoostiisa ciiddii ay ku diyaarinaysaa qaar baa xataa si ay u kala awood badan yihiin buudi aad ku xidhan kartaayo beerta cawska iyo qudaarta iyo waxyaalo badan aad kaga guri kartaayo sidii gaadhi oo kale mooto oo kale aad u isticmaali kartaa marka walaalayaal waxaan xaggan idinkula wadaagayaa mashiinka labaad aad gadanaysid beerta ciiddeeda 6dii biloodba waa la bedelaa iniinyaha la bedelaa marka sidiiba greenhouse-yada oo kale marka muhiim ayay idin tahay marka walaalayaal matoorkan ama mashiinkan ciidda idin diyaarinaya ayaan idinkula talin lahaa macaamiishana hore waan ugu rarnay saad halkan videogan ka aragtaan iyadoo kaargowga lagu rarayo waa ilaa 8,000 oo dollar meelaha wax ku dhow iyo 8,500 oo dollar meelahaas ayuu tagaa waa cagaf yaro awood badan oo beertii ciiddii si kasta u diyaarinaysa qodaysa jabinaysa rogaysa ciidda kaaga shaqaynaysa mashiinka saddexaad markaa walaalayaal aan halkan idinkula wadaagayo dad ayaa jecel beerta gudaheeda markaa in cawska ka baxay ama dhirta kale ee biyuhu soo saareen ama wixii marka aan loo baahnayn in biyaha iyo nafaqada iyo ama waxyaalihii beerta loogu talagalay inay la qaybsadaan inay ka jaraan ama dad calafka beeraba cawska iyo balka iyo waxyaalaha beera mashiinkan yar ee maalintii oo dhan aad ku shaqayn kartid ee markaa iskale 2 mindi oo xalleefa oo markaa cawskii jaraya oo beerta meel kasta luuq kasta ka gelaya ayaan idinkula talin lahaa sababtoo ah cawskii baad ka jari kartaa oo beertii oo nadiifa oo ciiddii aad diyaarinaysid ayaad u adeegsan kartaa waa mashiinka saddexaad ee beerta mashruucaaga aad iyo aad u anfacaya dad badanna xaqiiqatan ay u baahan yihiin waxyaalo badan oo la beero ayaa jira oo hoosta laga jaro ama digirta ha noqoto ama ma aragtay waxyaalo badan oo markaa loo baahan yahay in la guro ayaa jira waxaas oo dhan ayaad ku guri kartaa marka loo baahan yahay in beerta laga jaro waa mashiinka afaraad aad iyo aadka u muhiima mashiinka shanaad aan kusoo gebagabeynaya dadka beeraha cusub iibsanaya dhul gadanaya waxaa dhacda dhulkaas in badan oo ka mida in markaa geed garanwaa ah uu ka dhex baxay ama geed yaroo quraaca ama maygaag ama noocyada geedaha ka baxa dhulkeenna in beertii ku yaallo marka geedahaasi beertii loo diyaariyo ciiddii loo jabiyo oo looga jaro mashiinkan yaroo 200 iyo xoogay dollara 250 dollar 230 dollar mashiinkan yar oo kale ayaad soo gadanaysaa kabacdi geedkii garanwaaga ahaa ee beerta haystay ama geedihii kale aan beerta u baahnayn oo dhan ayaad kaga jaraysaa oo gunta aad ka goynaysaa mashiinkaasna wuxuu in badan ka anfacayaa in beerta markaad iibsatid geedihii loo baahnaa iyo oo waaweynaa ee ka baxay oo dhan inaad si sahlan oo fudud aad beerta uga jartid oo aad uga goysid marka waa mashiin afaraad oo qaabo badan idin anfici kara qofkii markaa mashruuc beereed hirgelinayana waxtar badan u leh marka walaalayaal sidoo kalena qalabkii drip irrigationka tuumbooyinkii lagu waraabinayay beerta matoorkii haddeen ka soo hadalnay isagana waan idiin haynaa iyagoo noocyo badan oo kala duwana sida hadda kan oo kale oo aad u adag oo beerta ma aragtay cimri dheer haynaya oo haddii lagu istaagayo haddii kale baan wax noqonayn allaale wixii qalab beereed u baahnayd oo dhan dalka Turkiga ayaan idinka haynaa qofkii u baahan in qalabkan awoodooda shidaalka isticmaalayaan qiimahooda waxaas oo dhan lala fadhiisiiyo dad khabiir oo noo qaabilsan oo warshadaha kala adeegaya ayaa jira dadkaas ayaan insha Allah isku kiin xidhi doonaa markaad nidaamka soo raacdaan lambarkan ayaad walaalayaal nagala soo xidhiidhaysaan WhatsApp-ka ayaad nagala soo xidhiidhaysaan maanta waxaan la wadaagayay wax soo saarka beeraha waxaan ognahay 500 oo milyan oo dollar ilaa 1 bilyan lacag ku dhow in ay soo siisano qudaar basal kaabash yaanyo kaarood avocado cinab strawberry waxaas oo dhan dalka dibadiisa ayaa laga keenaa haddii biyo fiican helo ciidiina diyaarino in badan oo waxaas ka mid ah wadankeena waa lagu beeri karaa marka walaalayaal waxaan kula talin lahaa in wax soo saarkeen ka faa'iideysano farmingku waa sector wadan kasta u muhiima inuu cunno ku filan uu soo saaro adduunkana ahmiyad badan la siiyo oo wadamadu ay ku xisaabtamaan intaas oo tan oo mega tan oo qudaar ah ayaan soo saaray oo dalkaas waan kaga hormaray
marka walaalayaal waxaan kula talin lahaa wax soo saarka beeraha marnaba ku khasaari maysaan waa mashruuca ugu muhiimsan aad maalgashan kartaan mashruucaas ayaan maanta 4 qalab oo muhiim ah aan kala wadaagayay insha Allah fiidiyoyada greenhouse-ka oo beeraha qayb ka mid ah oo iyaguna wax soo saar badan ayaan playlist-ga halkan idin soo dhigaya aad daawan kartaan oo aad ku xijinaysaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.